Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Daawadayaal kusoo dhawaada Somali Voice Media. Barnaamijkeenan ayaa waxa uu ku saabsiisan yahay hees la magac baxday Hudhud. Heestan oo uu tiriyey Maxamed Ibraahim Hadraawi, kaasoo uu heestan Hudhud ku xaal wareysanayo abwaanku marxuumkii Cilmi Boodheri ee u dhintay hurgumadii jacaylka ee uu u qabay Hodan. haddaba intaanaynu barnaamijka gudagelin, fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe saar, gambaleelkana furo si aad u hesho fiidiyowyada aan soo gelinayno maalinlaha aan soo gelinayno channelka. Sidoo kalena like saar si ay dad badan u gaadho fiidiyowgani. haddaba aynu galle heestan Hudhud ayaa waxa uu xaal wareysi ka qaadayaa Maxamed Ibraahim oo ku magac dheer Hadraawi, oo ah abwaan Soomaaliyeed oo aad u caan ahi. Cilmi Boodheri oo ahaa nin Soomaaliyeed kaasi oo ku noolaan jiray magaalada Berbera, oo u dhintay jacayl uu u qaaday gabadh Soomaaliyeed oo la odhan jiray iyadana Hodan, taasi oo ay ku wada noolaayeen magaalada Berbera. haddaba heestu waxay odhanaysaa sida tan: boqorkay huq iyo ciil, hagardaama lumisow, hadimada galgacalka leh, cilmigii u hoydow, hawraarta maansada iyo hoga tusaalaa, heesaha baroorta ah, halabsiga jacaylkow, hambalyiyo salaan iyo hibe iga guddoonoo, kolay waan hubaayo howlihii adduunyada heshay aayahoodee, hal yar aan tooydee. halkaas hal yar aan tooydii macnaheedu waxay noqonaysaa bal aan ku yaro wareysta jannadii ma hurudaa, hadh qabow ma jiiftaa, hoobaan ma gurataa, hablo xuural cayni sow kuuma heesaan, waxa aad la haysaba hoo kuma yidhaahdaan, hor ilaahay adigiyo hodan ma isku aragteen, ma isdhaafsateen hadal. yacni halkaasna wuxuu leeyahay su-aal weeyaanoo abwaanku waxa uu leeyahay hodan ma isku aragteen jannada dhexdeeda, oo ma iswareysateen oo hadallo ma isdhaafsateen. bal aan kusii soconee waxaa sidoo kale uu yidhi: bal maxaan haweenkiyo dumar ugu hiloobaa, ama kula heshiiyaa ugu hagar la-aadaa, sawtay hirbeeniyo hogol aan da-ayniyo haro aan biyo lahayn hanfi kuu aroorsheen, adigoo haraad qaba hiigaaga kiciyeen, sawtay ku howleen, hengelaha ku saareen, hami kugu abuureen, hurdo kaa kaxeeyeen, cudur kugu hilaabeen. haddaba waxyaabaha dhib sheegashada ah ee uu soo tiriyey abwaanku, yacni wuxuu ku sheegayaa dhibaatadii ay u horseedeen inantii ay isjeclaayeen Hodan, iyo dadkii Hodan ay kasoo jeedayba ay u diideen inanta, dhibtii ku dhacday ninkan Allah u naxariistay Cilmi Boodheri, oo ay sabab u ahayd gabadhaas inay diido ninkan. aan kusii soconaya: hooga kugu dabooleen, hore kuugu tuureen, haadaan ku geliyeen, hoos kuugu tuureen, sawtay ku heereen, ku jareen halbowlaha, bacad kugu halgaadeen, cidda kaaga hoydeen, ku dhigeen habaaskee, horarkiyo waraabuhu hilibkaaga feenteen, haadda iyo xunshadu hanbadaada jiiteen, waxaan ugu habranayaa. intaas waxa uu soo tiriyey dhibtii ay Hadraawi waxaan u jeedaa Cilmi Boodheri ay u geysteen dumarkii amaba inantaas iyo dadkii kaleba ay u diideen inanta. markaa isagu wuxuu leeyahay abwaanku sabab ma anigoo og buu leeyahay dhibtay kusoo mariyeen, sababna u noqdeen inaad u dhimato jacaylkii aad u qabtay dumarkaas aawadeed. sabab ma amaba sideebaan anigu ama ragi ay u haweysan karayaan amaba ay ugu shukaansan karayaan si ay u guursadaan dumar. marka wuxuu leeyahay dumarba waaba xaaraan bay iga noqon lahayd. waaya aan kusii socono: ku dhigeen habaaskee, horarkiyo waraabuhu
hilibkaaga feenteen haadda iyo xunshadu hanbadaada jiiteen waxaan ugu habranayaa waxaan kaga cudur daaranayaa buu leeyahy hooyaa ka dhalato naaskii habreed baa iga hiilinayee yacni haddaani hooye ka dhalan yacni duman xaaraan buu iga ahaan lahaa buu leeyahy dhibaatadii ku horseedeen aawada ayuu leeyahy hooyaa ka dhalato naaskii habreed baa iga hiilinayee walee howlahan galo walee howlahan galo iyo hegantaan dhigo dumar lama haweysteen ragba ma hungureeyeen hanti lagama dhibeen guri laguma hoysteen haal lamama yeesheen yacni wuxuu ka hadlayaa haddii aanay hooye ka dhalan hooye waa aad iyo aad bay u qaali u tahay markaa hooye haddaanay ka dhalan dumarba raggu mabay haweysteen dhibaatada ay adiga ku horseedeen iyo dhibaatada yacni rag kale oo iyaguba jacayl awadood wax u noqday barnaamijkeenii aan ku eegaynay heestan hudhud la magacbaxday intaasu ayuu naga dhegayahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa anigoo muxiidiin oo idinkaga tegaya ismaqal dambe iyo kulan dambe oo xiise leh